بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين صلى الله وسلم على نبينا محمد وصحبه وسلم وعيالkiisa iga dheere weeye ilaahay mahadi waa goor subaxa waa khamiisa ramadaan labaatan yahay kuna farqabartay saddex hijriga ah u beegan 21 bisha abriil 2020 ilaahay mahadi balse agaarkiisa kala roob fiican ma ka da'ayo inta ilaa iyo inta la gadoon iyo iliyo caalay inta saa la siman ilaa galka dhaweyn sokodiisa dhinaca kalena roob fiican ba ka da'ayo maanta gacan iyo ku dhow ilaah baa mahad ilaahay waxaan kala sheegay roobka ka qabin ilaah ka rajaynaynaa subhanahu wa ta'ala ilaah baa mahad aad baan u farxaa markaan dhulkayga joogo balse la joogo weelkaas aan imaado dadkii wada arkaya xoolihii cabahay maartay waxaan dareemaa raaxo gaar ah oo dalkiisa idin joogo maartay aadaankiisana maqlaya wixii ilaahay u qoran helaya waranaysa wax cibaadaysa ku dhawaayaan aan jirin muuq badan iyo shida badan iyo xab badan aan lahayn ilaahay mahadi ilaah noo ziyaadin nimcadiisa khayr dood khayr qabta Allah noogu daro dood khayr qabta Allah noogu daro yaa meel maartay nimcaad joogtaa meel dadkaaga wada joogo qofkaas warbaxaaba assalaamu calaykum yahay waan hawaayo iyo bariyaaka iyo midna aan lagu lahayn lagu leeyahay assalaamu calaykum kadibna af Soomaaliya ku wada hadlaysaan nimco weeye ilaahay u baxsho qofka maanta dibadaha joogaana garan kara wadan gaalo ee marti u noqday iyo gaalo marti u noqday kaas dareemi karaya laakiin dadka halkan jooga waxay idin qabaan inay janno ku maqantihiin oo aad ka seexateen waliba janno ku maqantihiin oo ka seexateen bay u qabaan in badan oo ka mid yihiin inaad dib ku jirdaan dibka idinka ku jiraan u soo gargaaraysaan waxay ilaahay u soo dildaan dad yar baa garan kara marka idinkana dibka ilaahay idin haya dibkeeda haya Allah idinka saaro sadaqadiina iyo xoolaha la baxdaan maalmo iyo dadkiina aad u soo dildaan iyo saad wadankiina dadka khayr loo jeceshihiin caruurta Allah idin waardiyeeyo naftida Allah idin waardiyeeyo adduunkiina iyo aakhiradiina Allah idin waardiyeeyo sidii dibadaha saasaan leeyahay Soomaaliyeed ee dibadaha dhibaatada ku haysato dawlad khayr qabtana ku soo duceeya Ramadaan baa hadda ku jirnaa waad ogtihiin habeenadii ducadana caawa waliba waa 22 caawa maartay Ramadaan habeenkii qadriga weeyaan isla rajaynayo caawa iyo 30 darwat ilaahay laga raasay nabiga sallallahu alayhi wasallam marka aw kama qaab marka waxaan leeyahay ducada inoo badiyo oo dawlad khayr qabtan lagu duceeyo dhibka ilaahay naga saaro isku duubni iyo iscafis iyo gobonimo ilaahay noo soo celiyo ku duceeya dawladda aan doonto marka waxaan iyadana ka codsaynaa inay samayso dib u heshiisiin iyo dad wanaagsan oo dib u heshiisiin ka shaqeeya inay marka u horeysaba waxay intaan wasiirka la magacaabin wasiirka dib u heshiisiinta iyo iscafinta iyo wada hadalka in degdeg loo asaaso oo loo magacaabo baan codsanayaa kadibna wasiirkaas iyo wasaaraddiisu ay shaqada u horeysa ka bilowdo inay dadka qaarna Hargeysa tagaan oo cabs ka dalbaan iyagana soo cafiyaan qaarna Hargeysa ka yimaadaan xamad tagaan cabs ka dalbaan qaarna galhay ka tagaan oo hubiyo tagaan qaarna ceelgaaba ka tagaan oo laascaan tagaan qaarna ceelgaaba ka tagaan oo Hargeysa tagaan qaarna macnaha waxaan ka wadaa magaalooyinka bulshada isugu dhow magaalada ku xigto hal is cafiyo ilaahay markaa gacmaha u taagan isagana inuu cafiyo subhanahu wa ta'ala saasa codsanayaa وعبد المجيد محمد علي وين بالمسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.